ninba maalin wuxuu u baxay safar wuxuu safarkii ku jiraba wuxuu soo gaaray tuulo yar. tuulada darafkeeda markii uu marayay ayuu wuxuu arkay maroodiyaal meel taagtaagan. wuxuu maroodiyaashii ku soo socdo oo u soo dhowaadaba wuxuu arkay in maroodiyaashu aysan xero ku xeraysnayn. wuxuu kaloo arkay in qof ilaalinaya oo ag joogaaba uusan jirin. kadib maroodiyaashii buu si fiican u fiiriyey. wuxuu arkay maroodiyaasha in xarig yar oo tiir ku xiran dhulka ku mudan inay ku xiran yihiin. isagoo isla hadlayo isweydiinaya maroodiyaashan sidan u waaweyn oo xoogga badan way dhaqaaqi karaane maxaa meesha ku haya ayaa meel u dhow waxaa ka soo baxay nin maroodiyaasha xanaanayn jiray. ninkii bay isa salaameen, way iswaraysteen. kadib buu wuxuu yidhi maku weydiin karaa su'aal? wuxuu yidhi haa. wuxuu yidhi maroodiyaashan intan laaleeg xariggaa yar sidee buu u hayaa? wuxuu uga sheekeeyey maroodiyaashu markii ay yaryaraayeen oo aadka u yaryaraayeen markay saa u dhasheen wax yar kadib ayaa waxaa la baray in xariggaa lagu xidho oo ay meeshaa taagnaadaan. intii ay korayeen oo dhanna ilaa waa xayawaane, maroodigu mar kasta oo uu isku dayo inuu xariggii ka fakadaba kama fakan jirin. kadib waxaa caado u noqotay oo uu bartay markii uu weynaaday inaysan macquul ahayn inuu xariggan ka fakado. aaminaaddaa ku jirta oo isagu uu dareemayo ayaana keentay in xarigga markii saa loogu xidhaba uusan meesha ka dhaqaaqin. maxaa yeelay yaraantiisii oo dhan ayaa waxaa lagu soo ababiyey xariggaa inuu ku xirnaado. xarigguna uma oggolaan jirin markuu tabarta yaraa ee aadka u yaraa inuu ka fakado. sidaa darteed waxaa keenay buu yidhi in maroodiga kani uu meesha ka dhaqaaqi waayo oo xariggaa yar uu ku xihan yaad la yaaban tahay oo cid ilaalinaysana aysan jirin, xerana uusan ku jirin. waxa keenay waa markiisii hore oo uu yaraa ayuu aaminay inuusan xariggan ka fakan karin. hadda oo uu weynaadayna macquulnimadaas uma muuqato inuu xariggaa ka fakan karo. nuxurka sheekadu waxay tahay qofka bini'aadamka ah marka in fara badan inta uu yaryahay wax lagu celceliyo, inta badan waxaa dhacda marka uu weynaadana inuu sidaa aamino oo uu sidaa dhaafi kari waayo. maxaa yeelay inta uu yaryahay haddii lagu ababiyo aabbahaaba weligaa wax ma baran, hooyadaaba weligeed wax ma baran. aabbahaa sidaasuu ahaan jiray, hooyadaabaa sidaa ahaan jirtay, qabiilkaa ka dhalatay baa sidaasa. haddii qofka bini'aadamkahi awoodda rabbigii uu siiyey inta badan la xadido oo loo oggolaan waayo inuu meel gaaro. maxaa yeelay waxaad ogaataa badi marka bini'aadamka kale ee adiga wax kaa sheegayaan oo awooddaada ay ka hadlayaan, waxaad ogaataa cidda ay ka hadlayaan ma ahan adiga. cidda ay ka hadlayaan waa naftooda. cidda ay ka hadlayaan oo aysan macquul la ahayn waa iyaga. iyagu markay arki waayeen macquulnimada shaygaas ama macquulnimada waxa ay iyagu qaban karaan, inta badan waxaa dhacda in adiga ay kuga cabbiraan, kadibna ay yidhaahdaan adigu sidaasaa tahay, adigu sidaasaa tahay. markaad yartoo marka sidaa lagugu ababiyo oo warkaa lagugu celceliyo inta badan waxaa dhacda marka aad weynaatid adiga ahaantaada dhegaysanaya waxyaabo fara badanoo waxaa jira maanta laga yaaba inaad iga markhaanti kici kartay ama adigu aad garanayso anigu aanan ogayn. yaraantaadii lagugu soo sheekeeyey, laakiin marka aad weynaatay weli aad iska goyn laadahay adoo og waxaasu xataa inuu khalad yahay oo maanta qof weynaad noqotay. qofka bini'aadamkahi waa sida lagu soo kondishin garayo, waa sida la baro, waa sida lagu ababiyo, waa sida uu qofka loo koriyo. haddii markaad yarayd lagugu soo koriyey waxaa ma qaban kartid, sidaana ma noqon kartid, meeshaa ma gaari kartid, waddankaa ma tegi kartid. waxaad ogaataa inta badan adoo weyn maanta mushkiladda ku haysataa waxay xiriir la leedahay yaraantaadii, ababkaagii hore, sidii lagugu soo koriyey. dadkii ku soo koriyeyba inta badan waxay ahaayeen negative, ama waalidkaa ha ahaadeen ama dad kaloo ku soo koriya ha noqdeen. waxa qofka celin kara oo hayn kara waa waxa isaguu aaminsan yahay. haddaad adigu aaminsan tahay nolosha wax kasta oo maanta aadan qaban karin ma jiraan, waxaan hubaa hubaal inaad qaban doontid. waxaan kuu hubaa 100% shayga inaad qaban karaysid. laakiin badankeen waxa maanta ina hakeeyey oo ina celiyey oo dib inoo haya oo inoo diiday oo keenay qofku inuu wax walba ka cabsado wixiiyo meesha aysan cabsiiba oolin, inta badan waxa keenaya waa sidii markii hore ku soo ababay. qofka bini'aadamka marka aan leeyahay waa caadooyinkiisa ama waxa uu caadaystay waa tan oo kale. markii aad si caadaysatay, maxaa yeelay adigu markii aad yarayd waxba maadan caadaysan karin, laakiin dadka kugu wareegsan ee markaa ku korinayay ee aad ku dayanaysay ee aad fiirinaysay ee dadkii dunida kuugu horreeyey wax ka baranaysay ayaa inta badan sidaa kuu koriyey. taasaa waxay kugu keenaysaa marka aad weynaatid si kasta ood maanta xoog weyn u leedahay inaad caqabad kaa hor timaado. caqabaddaasoo dhanka maskaxda iyo nafta kaa haysata. naftaada caqabadda keliya ee maanta haysata haddaad dib ugu laabatid waxaad arkaysaa badankeedu wuxuu ka yimid dad kale, ama xaasid ha noqdeen ama dad iyagu sidoodaba negative ahaa ama aan arki karin shaygaas inuu macquul yahay, weynanka uu shaygu leeyahay dartii uunbay aad ka baratay. haddii marka adigu naftaada aad aamintid waxan waad samayn kartaa, waadna qaban kartaa, intay doontaba ha kugu qaadatee hubaal waad qaban karaysaa. maroodiga sheekadiisa hadda dib ugu noqotay waxaad arkaysaa qorigaa yar oo ku xiran yahay yaraantiisii baa la baray.
sida yaraantiisii lagu soo koriyey ayuu maanta isaga oo weyn uusan ka kori karin. dhibaatada haysataa waa taa. dad fara badan oo maanta ina ka midana mushkiladda ina hortaagani waa taa. haddii marka adigu naftaada aad aamintid waxaan ku hor yaallaa caqabad weyn ma aha, waanad ka tallaabsan kartaa. si kasta oo ay u weyn tahayba waxaa laguu hor keenay caqabaddan waa inay ku koriso, waa inaad wax noqotid, waa inaad booska aad joogtid ka dhaqaaqdid. taasaa lagugu talagalay. adigu markii ay naftaada ay wax diidayso ama waxa kan aad leedahay ma qaban karo ama ma samayn karo, haddaad xaqiiqad dib ugu noqotid meesha ay arrintaasu ka timid ama kaa haysato, waxaa kuu soo baxaysa badankeedu dadka kalaa ku baray, waa lagugu soo koriyey, ama environmentiga aad maanta dhex joogtid baa dad negative ah. taasaa u baahan inaad noloshaada ka goysid. marka naftaada aad ka goysid dadka negatifeka oo kuu diidiyo horumar inaad gaartid, oo mar walbaba cabashada badan, oo mar walbaba ku odhanaya waxaa lama samayn karo, wax macquula maaha, adigoo kale looguma talagelin. bini aadamka dunida jooga dhammaan waa isku mid. qof walbaaba qofka kale wuxuu kaga horreeya waa dadaalkiisa iyo kartidiisa. haddaad maanta fiirisid dadka noloshaada ku wareegsan, asxaabtaada, qaraabadaada iyo wixii la mid ah, oo aad inta la fariisatid kooda ugu farxadda yar si fiican ula sheekaysatid oo hoose, waxaa kuu soo baxaysa in uu ka mid yahay dadka dunida ku nool kuwa ugu cabsida badan inay isbeddelaan. isbeddelku cabsi buu la yimaadaa, laakiin farxaddiisu way dambaysaa. marka isbeddel uu dhaco oo isbeddelka natiijadiisa aad gaartid, inta badan farxad baa ku xigta. qofku wuu ku farxaa. tallaabo kastoo nolosha aad qaadid markaad meel kore ka gaartidba, markaad tallaabada inta aad qaadaysid uunbay dhibaato kugu haysaa. laakiin meeshii loogu talagalay tallaabada marka aad dhigtid waad ku farxaysaa. xaqiiqo waxaa farxaddaasu ma waarto, waana tan keenta bini'aadan fara badan isweydiinayaan maxaa keenay dhiirigelintu inay shaqayso maalin ama 2 ama 3 ama daqiiqada yar. maxaa yeelay booskii lagugu talagalay marka aad gaartid farxaddu way dhacaysaa. waxaad u baahan tahay mar labaad inaad baterigaaga dib u charge garaysid, inaad mar labaad dib energy u qaadatid, inaad mar labaad haddana naftaada dhiirigelisid. dhiirigelinta ugu weyn ee aad haysataa waa naftaada. naftaadu markay dhiirigelin kuu noqoto, baahidaadu markay dhiirigelin kuu noqoto, booska aad joogtid iyo ciilka iyo carada aad dareemaysid, walwalka iyo walbahaarka ku haysta, marka aad fiirisid taasaa dhiirigelin ku ah. qofka bini'aadamkaahi hadba baahidiisu inta ay la-eg tahay ayay cabsidiisuna la-eg tahay. mar walba oo aad waxaad u baahan tahay uu weyn yahayna cabsidaadu way weyn tahay. laakiin cabsidaas waa maskaxda oo keliya. waxay kaaga baahan tahay tallaabo qaad. tallaabada marka aad qaadid hubaal waxa aad xaqiijin karaysaa in bal tallaabadaasu ay shaqaynayso in kale, ugu yaraan taasaad ka baranaysaa. hadday kuu shaqayn weydo tallaabadii midka gedisan baad qaadaysaa. hadday taasi kuu shaqayn weydo haddana mid kale aad isku dayaysaa. isku dayga tirada badan iyo ku celcelinta ayaa qofka bini'aadamka meel ku gaara. taasaa natiijo xaqiiqo ah oo dhab ah qofka bini'aadamka uu ka keenaa waxa uu doonayo. laakiin marka ay cabsiyo ku hayso ood baqaysid oo baqdinta kugu weyne ay tahay isbeddelka aad isbeddeli doontid iyo qofka aad noqon doontid, waxaad ogataa caqabadaha ku haysta mid ka mida weeye. bini'aadamku sidiisaba horumar ma gaaro hadduusan cabsida haysata ka tallaabsan. geesinimaad u baahan tahay. waxaad u baahan tahay naftaada inaad dhiirigelisid oo cid kale aadan ka sugin inay ku dhiirigeliso. waa in danta iyo duruufta aad ku jirtaa dhiirigelin kuu noqoto. dad fara badan oo maanta meel gaaray, dhiirigelinta ugu weyn ee ay haystaan waa maalmihii soo dhaafay rafaadka badnaa, waa maalmihii duruufuhu dhulka ku soo jiideen, waa maalmihii ay nolosha dhulka la dhacday, waa maalmihii uu boorka afka uga buuxay, waa maalmihii uusan waxba kala garan karin dhankuu u socdo iyo dhankuu ka socdo. dad badan taasaa dhiirigelin u ah. ha u malaynin dadkan maanta horumarka gaaray badankood waxay ku soo koreen silic, badankood waxay ku soo koreen nolol rafaad leh. taasaa keenta mar walba oo naftoodu ay hor keento fursadaha nolosha mid ka mida, kadibna ay cabsiyo taabato, wuxuu xusuustaa maalmihii uu soo dhaafay. kadib buu dib u fiiriyaa oo wuxuu yidhahdaa ma doonayo maalmahaasoo kale noloshayda dib inay ugu soo noqdaan. dhiirigelinta ugu weynay haystaan waa taa. waxaad adigu naftaada ugu sheekaysaa xaalad kasta oo kula soo gudboonaata nolosha in aysan horay u socodku macquul ahayn isbeddel la'aan. horay haddaad doonaysid inaad u socotid, shaki male isbeddel baad u baahan tahay. booska maanta aad joogtid hadday waxbarasho tahay iyo dhinacyada kale kala gedisana nolosha, sida keliya ee isbeddel aad ugu samayn kartid oo booska aad joogtid inta uga guurtid boos cusub nolosha u degi kartaa, waa in isbeddelka cabsida kaa haysata aad ka gudubtid. sidee cabsida uga gudbi karaa? cabsida waxaad uga gudbi kartid war kale oo tiro badan kuma oranayo. sida keliya ee aad uga gudbi kartid waa waxa aad ka cabsanaysid dhex istaag. markaad shaygaa dhex istaagtid ayaad meel gaaraysaa. markaad shaygaa dhex istaagtid ayaad dareemi doontaa cabsidu inaysan wax macnaaba lahayn.
laakiin inta adigu aad aaminsan tahay meeshaad ku soo kortay magaalada ku soo kortay wadan dagaalan ku soo koray qaxooti baan ahay halkan bay iga haysataa waaba saa la igu sameey intay ku haysato meel ma gaaraysid caqabada ugu weyn ee ballaaran ee ku haysata caqabadaha kale ee nolosha adiga naftaada ka baxsanba waad ka tallaabsan kartaa laakiin kuwa ugu adag ee qofka bini'aadamkaahi uusan marna ka tallaabsan karin waa kuwa naftiisa ka haysta waa dagaalka ka dhex socda maskaxdiisa iyo qalbigiisa waa dagaalka ka dhex socda naftiisa iyo qof ahaantiisa iyo kartidiisa waa waxa uu qaban karo oo uu aaminsan yahay in uusan qaban karin adigu markaad naftaada meel ka soo bixisid ayaad meel gaari kartaa adigu naftaadu marka ay kuu muuqato qiimaha ay leedahay baad meel isdhigi kartaa wanaagsan laakiin inta qiimahaaga uusan kuu muuqan inta qiimahaaga aadan garanin xaqiiqo waxaa ah waxaad ku jiraysaa xiriir baad qof la samaynaysaa guur baad ka damacsan tahay isagoo si xun kuula dhaqmayo oo ku khiyaanaya oo qalbiga kaa jebinaya oo ku cadaabaya ayaad qofkaa weli la sii soconaysaa maxaa kugu haya waa go'aan adigu aad leedahay waa isbeddelka soo socdaad ka baqaysaa waa waxaad ka baqaysaa haddaan qofkan ka tago qof kale ammaan waa mushkiladda ugu daran ee bini'aadam fara badan maanta haysata waxaa jira dad fara badan oo halyeeyo ahaa markay wax baranayeen laakiin maalintay jaamacadda ka qalin jebiyeen naf ahaantooda aaminsan iyagoo naftooda ku cabiraya waddanka xaaladda ka jirta meesha uu joogo waa lay cunsuriyeynayaa ama waddankan baa deganay ama midabkaygu dadku waa ka gedisan yahay ama waddanka aan joogaa shaqo ma lahan ama meesha tani waa meel dhibaato haddii meeshaasaan tegi laha waxbaan noqon lahaa war meesha aad joogtid haddii cilmigii aad baratay aad wax kaga keeni weydin intee qof baa baahan oo maanta cilmi u baahan oo dunida jooga dad fara badan waxa aad baratay inaad dadka kale bartid ayaad wax ka heli kartaa waxaan garanayaa dad fara badan oo jaamacada ka soo qalin jabiyay laakiin inuu iskuul inta furto uu jaamacad halkaa wixii uu jaamacadda ka soo bartay uu dadka markaa ku sii baro oo markaa isagu macallin inta noqdo uu lacag ka qaato waa ka wahsanaya wuxuu arkaa shaqo hoosaysa inay tahay wuxuu ka baqayaa dadka kale inay yidhaahdaan war ma adoo jaamacad heblaayo ka soo qalin jabisay oo intaasoo sano soo wax baranaysay baa maanta private school dhex istaagaysaa oo dadka wax baraysaa oo a b c dadka u dhigaysaa taasuu ka baqaya waa fikradda dadka leysa maxaa yeelay dadka inta badan ee jaamacadaha ka soo baxay ee dhulka jooga ayaa markiiba fikradooda intay ka shaqaysiyeen meel gaaray marka uu waraysto yidhahdo war hebelow sidee shaqadan ku heshayna sirtiisa uma sheegayo waxaad ogataa qof bini'aadam ah oo sirta uu guul ku gaaray inta ka waraysatid kaaga warramaya dunida wuu yaryahay inteenna badan maanta Soomaalida dadka ganacsiga meel sare ka gaaray haddaad u tagtid oo waraysatid wuxuu ku leeyahay waqti ma hayo wuxuu ku leeyahay waxyaabahaas waa siro la isma weydiiyo waa la halgamaya halgan anigu meesha aan soo gaaray adna waad soo gaari doontaa ha sugin nin intuu ku yiraahdo qalin iyo buug soo qaado sirta aan meeshan ku gaaray baan ku sheegaya ma jiro wuu yar yahay bini aadamku sidoodaba ma ogola wax soo garab istaaga waxay jecel yihiin dadkoo dhan inay dhaafaan oo dadka oo dhan ay noqdaan kuwa iyaga u baahan qofka bini aadamkay mar walba wuxuu jecel yahay inuu hogaamiyo wuxuu jecel yahay isagu inuu dadka ka sarreeyo qofka bini aadamka xaqiiqana waxa marka maanta la fiiriyo statistically taariikhda qoran marka la eego dadku marka ay dadka kale kaalmeyn waayaan oo wax la qaban waayaan oo dadka ka hooseeya ay hoos u fiirin waayaan ee eegaan inta ka koraysa oo kaliya inta ka hooseysana ay madaxa kaga istaagaan xaqiiqo guuldarrada ugu weyn meeshaas ka timaada yuusan qofku sirtii oo dhan ku wada dhiibin laakiin wuxuu ku dhigi karaa foroyaal baan ku siinaya intan iyo intan samee inta ka dambaysana adig iyo kartidaada ku taala marka qish lagu siiyo adig ku taala ku khusaysaa sida aad sameynaysid ama inaad ka fariisatid ama inaad wax qabatid laakiin badankood dadka markaad foroyaashii u dhiibtid oo tiraadid sidan iyo sidan samee wuxuu ku leeyahay intan waad ii qortay laakiin waxaan rabaa inaad ii sii faahfaahisid faahfaahintu adigii ku taala inaad adigu faahfaahisid inaad maskaxdaada ka shaqaysiisid maxaa keenaya in habeen barkii aad isrogrogtid adigoo ka fakaraya biilasha iyo mushkiladaha ku haysta iyo caqabadaha ku hortaagan iyo sida oo farta dhexda inta ka qaniintay aad leedahay waxa maxaan u heli kari waayey su'aasha isweydiinta leh baa waxay tahay markaad si dhab ah naftaada ula hadashid waxa aad doonaysid horta ma u shaqaysaa shaqadii lagaaga baahnaa horta ma la timid dadaalkii lagaaga baahnaa horta ma haysaa markay taasu kuu soo baxdo xaqiiqo waxaad ogaanaysaa naftaadu inaysan badadaalkii ku jirin oo ay sugayso in wixii oo fudud ay isu dhiibaan dadku inay ku soo doontaan dad far badanoo maanta meel gaaray oo wakhtigooda ka adkaaday haddaad u fiirsatid ood maanta tirada hebelow waxaan rabaa inaan bal saacadna ha noqotee inaan wax yar bal kula yara sheekaysto kuuma hayaan wakhti maxaa yeelay wuxuu ku mashquulsan yahay naftiisa wuxuu ku mashquulsan yahay projectigii shalay hadduu dhammeeyey mid kale ku mashquulsan yahay kii kale uu bilaabay baa wakhtigiisu ka dib dhacaya kuuma quuro wakhtigiisa inuu ku siiyo adigu wakhtigaaga maxaad ugu luminaysaa meelo kaloon faa'iida kaa soo gelayn isweydiintu waa taa waxaana ku hubaa dhab ahaan adigu markaad naftaada cadaadisid markaad naftaada ku khasabtid waxay ka baqayso markaad naftaada danteeda garansiisid oo hurdada ay ku jirto ka kicisid si ay riyadii ay ku riyoonaysay u rumayso maxaa yeelay badankeen waan hurudnaa waan riyoonaynaa
riyadii aan ku jirnay baan rabnaa inay rumowdo markay indhahaan kala qaadno oon joodariga inta fadhiisanno hareerahana fiirino oon ogaanno wixii inaysan dhab ahayn dad badanee xaaladooda waa sidaa waxaan kuu hubaa markaad adigu naftaada canaanatid oo naftaada aad cadaadisid oo naftaada aad ku qasabtid oo tiraahdid 5 sano ee soo socotaa fasax kuuma yaal 5 sano ee soo socotaa madadaalo kuuma taal 5 sano ee soo socotaa waxaan ballan ku qaaday in aan nafta aan maanta ilaahay ii ka dhiibay baa tahay in aan maanta dhexda inta xirto aan ballan ku qaado in aan waxa aan adigu isla gaarno markaan meesha gaarnaan iswaraysanayna sidii laba qof oo wada safray oo ballan ku galay inaysan wada hadlin intay safarka ku jiraan iswaraysigooda iyo waxay soo mareen inay ka sheekeeyaanna ay noqonayso markaan safarka dhammayno ee meeshaan ku nasan lahayn tagno ayaynu iswaraysanaynaa xaqiiqada naftaada markaad u soo bandhigtid oo naftaadu ay noqoto mid aad ka adag tahay oo adiga jara kugu jirta ninka fardaha lihi faraskiisu waa u xiran yahay faraskiisu meesha isagu u hogaamiyo ayuu aadaa naftan adaa lagu siiyey adaa lagugu ammaanayey adigay gacantaada ku jirtaa adigaa lagugu talagalay in aad maamushid ilaahay subxaana wa tacaala kadib markii uu naftan abuuray adaa lagu dhexgeliyey qof bini aadamoo nool baa lagaa dhigay xisaabtami kara caqli leh oo naftiisa maanta waxaa danta ugu jirtay wax kala saari kara naftaada markaad saa u qasabtid oo naftaada aad canaanatid oo hadafkaagu uu noqdo orodka aad bilowdid 5 sano ee soo socota haddii cimri kuu gaaro inaadan dib u soo jeensan waxaan kuu hubaa xaqiiqo waad gaaraysaa meeshaad ku riyoonaysid